ma tahay waalid danaynayo caruurtiisa inay diinta islaamka fahamto? ma jeceshahay caruurtaada inay yeelato akhlaaq wanaagsan, basic islaam inay taqaano? ma jeceshahay caruurtaada inay kuu noqdaan saalixiin ay kuu soo ducooyaan? ma og tahay boqolkiiba 90 wax ka badan ardayda dugsiyada aado inaysan hal aaya fasiri karin ama aysan aqoonin xataa kelimad laa ilaaha ila allah macnihiisa maxay tahay? weli ma isweydiisay maxaa keenay caruurtii intaan sano aan kusoo dadaalay inay intaas ka jawaabi maan hal aayad ay jawaabi waayeen? safarkii dheeraa iyo wareegyada aan ku wareegayo, dugsiyada aan ku wareegayo, waxaa ii soo baxday macallimiinta khayr allah siiyo juhdi badan inay caruurta geliyeen, ay qeyb xooga saareen hingaada iyo qur-aan akhriska. waalidkii caruurtii inuu juhdi badan geliyo, xoolo badanna aga baxay, waqti badanna uu geliyey, laakiin waxaa maqnaa qeybtii isku xiraysaa maqnaa oo tarbiyada islaamka. ilmahan in la baro laa ilaaha ila allah macnihiisa waxaa waaye. ilmaha tarbiyada haddii la bari waayo wuxuu noqonaa qof aan waxba fahamsanin. example yar haddaa idin siiyo, gabar waxaa jirtay maalin ila soo xiriirtay 3 sano diinta ka baxday. sababta markaan weydiiyey waxay igu tiri, markaan yaraay xijaab anoo wato, dugsigana waxaan ku aadi jiray xijaab weyn, wadadana waxaan ku mari jiray khimaar yar, ama xaafadana xijaab la-aanaan ku socon jiray. aniga isweydiiyey, gabadhaas xijaabka way xiratay laakiin looma sheegin sababtay u xiranayso. macallinkii dugsiga wuxuu xooga soo saaray qur-aanka iyo hingaada say waalidiinta ka dalbadeen, waalidkana caruurta dugsigan geena. gabadhaas alxamdulilah ilaahi wuu soo celiyey, laakiin meeqa caruura saas naaga fakatay oo diin hadda maanta aan haysanin. maxaa keenay? tarbiyada islaamka iyo caqiidada oo aan ka tagnay ayaa keentay. waxaan ogahay waalidiinta badi ama kulligoodba inay jecel yihiin caruurtooda inay u wanaagsanaato tarbiyada islaamiya ay u barato, inay arkaan ayagoo fahamsan macnaha laa ilaaha ila allah, inay arkaan caruurtooda oo u tukanayso siduu nebi maxamed u tukan jiray oo kale, inay arkaan caruurtooda oo siirada xabiibkooda Muhammad sallallahu alayhi wasallam aqrinayo kuna camal falaya, inay arkaan gabadhooda xijaabka iyo xijaabanaysa iyadoo ku faanaysa dhehayso kale diinteeda islaamka ay amartay. dalab badan iga yimid waalidiinta ayaa waxaan qornay kitaabadii 5 kitaabada aragteen oo tarbiya islaamiya. alxamdulillah aad iyo aad laga faa'iideystay, bal qaar ka mid inay ilmahooda imtixaan ka soo qaadaan WhatsApp igu soo diraan. meesha kadib waxay alxamdulillah wax yar lagu guuleystay, laakiin talab kala yimid oo waalidiin khayr qabo u dhahay sheekhu aniga carabina ma aqaani, englishna ma aqaani, si wax loo qoray si wax loo qor ma aqaani, kitaabka waa qorteen kalaasas ma noogu sameysaan. meesha fikrad kala waxaa ka dhalatay marka oo in caruurta loo sameeyo meel ay wax ka bartaan, luqadooda lagu fahamsiiyo oo si oo basic loo fahamsiiyo, macallin la soo fariisto ama waalid uu la fariisto loo diyaariyo insha Allah taala. waxaan kaa codsanaa haddaa tahay waalid waana ogahay inaad tahay waalid jecel caruurtiisa inay u liibaanaan, website-kan hoos ku qoran iska diiwaan geli. bishaaradaasaan idiin wadi maanta insha Allah taala. website-kan magacaaga, telefoonkaaga ku qoraysaa, inta caruur ku wadato magacyadooda, age-kooda qoraysaa, cumrigooda qoraysaa insha Allah taala. website-ka iyo waqtigu bilaabanayna waa idin la soo soconsiin doonaa. jazaakum Allahu khayran, barakallahu fiikum. Assalaamu calaykum.